madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdiga hogaaminayo ayaa galabta soo gaaray magaalada Sharm el-Sheikh ee dalka Masar. Madaxweynuhu wuxuu ka qayb galayaa shir berri halkan ka furmaya kaasoo dalalka ku bahoobay Jaamacadda Carabta iyo dalalka Midowga Yurub ay isugu yimaadeen salkan ku haya sidii iskaashi buuxa u dhaxmari lahaa labada dhinac, iskaashigaas oo ku saleysan dhanka amniga iyo ganacsiga iyo sidoo kale xasiloonida labada dhinac sida looga shaqeyn lahaa. runtii ka qaybgalka shirkan ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wuxuu noo sahlayaa in kulamo gaargaar ah uu la yeesho iyo shir duceedyo madaxda ka socota dalalka Carbeed iyo kuwa ka socda wadamada Yurub. waxaan rajaynaynaa insha Allah madaxda uu madaxweynuhu la kulmi doono labada dhinac inaan kala hadalno oo la meel dhigno sidii ay u sii joogteyn lahaayeen una xoojin lahaayeen iskaashiga ay la wadaagaan Soomaaliya iyo taageerada ay la garab istaagaan dawladda Soomaaliya. Waa mahadsantihiin.